بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu kusoo jirnay barashada softwareka Autodesk AutoCAD. waxaynu kusoo jirnay chapterka dimension. darsigan waxaynu uga hadli doonaa cashir muhiimadiisa wato. wuxuu ku saabsan yahay leaderska waxaa loo isticmaalaa in lagu indicate gareeyo ama lagu muujiyo markii aad shay ka mid ah mashruuca aad sameynaysa inaad faahfaahin ka bixisid. مثلا daaqad baad samaysay daaqadaas description-keeda ku qoraysaa, jaranjaraad samaysay jaranjarada description-keeda ku qoraysaa, macluumaad ku saabsan albaabka oo kale, derbiga, concrete shubka nooca noqonayo, yani si qoraaladaas aad u samaysid waxaa loo isticmaalaa leaders. marka waxaynu baranaynaa darsigan ku baran doonaa sida loo sameeyo leaderska insha Allah. haddaba aynu soo socono. leaderska wuxuu ku jiraa haddii dhowr meel baan ka heli karnaa. waxaa kan haddaa inta imaano out home tab inta ayuu ku jiraa leaderska waa kuwana. waxaa kaloo aan sameyn karnaa annotate tag. waxaa kana marka leader soo dooro kadib marka مثلا hadda jaranjaradan kala noo sameysan halkaas waxaa aan ku qorno tusaale ahaan trade inaan ku qorno trade. مثلا hadda ani fartaan aan iska bedelo aan kasoo u tegi doono propertieskiisa. yes taas noo door intan aad ka dhigtaa one highlight saar kadib height-ka one ka dhig weyn xoogaa. marka kaas ayaa waxaa la yiraahdaa leaderska. insha Allah taala waan arki doonaa inaan bedelno arrowhead-kan fartaan waxaan u tagi doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso muhiimadda uu leeyahay maxaa la jiray leader iyo waxa uu ku saabsan yahay. ma fahanti? marka yes halkaan aan dhahno rise tusaale ahaan halkaas waxaa weeye rise. waa fahanti soo ma? haddii aan rabno intii aan ku qorno ayadana trade tusaale ahaan intan aan ku qori karnaa trade. okay fartaan iga bedel event kaas ayaa marka waxaa la yiraahdaa leaderska. marka muhiimadaas ayay leeyihiin. haddaba marka aynu horey u soconno mathalan waxaan u baahannahay leaderka inaan macluumaad sac usii weyn aan kasii aragno. marka aynu soo qaadano tusaale ahaan we have here leader. meel kale ka helkana view baad imaan kartaa. view marka imaadid boxkan ayaad soo furanaysaa. marka waa kana inta waxyaaba badan baa kugu jiro qaybtaas aad dooranaysaa leaders. marka haddii versionada uu ku kala duwan yahay AutoCAD-ka waxaa laga yaabaa inuu adiga habka uuna kuu siinaynin uu text ahaan kaaga dhigayo ama uu isdaba dhigayo. optionadan badan adiga waxaa ka dooranaysaa leaders. marka waa kuwa intaan option ayuu leeyahay. leader with no text falaar bas u baahan tahay, leader with text leader qoraal wato, leader with cycle يعني cycle with text waaye dabcan. hada kan kala aan fiirino muhiimadiisu ayuu wataa. tusaale ahaan waxaan u baahana meesha dialog box-kan aan kusoo furmaayo مثلا a noogu qorba kadib okay dheh. marka hadda a inta ku qoran yahay waa kaasa aan ka shaqeyna. marka propertieskiisa aynu tagno imo right keegda marka just halka waxaa rabka properties yani waxaan rabaa inaan wax ka bedelo ood fahamtid. hadda arrowhead-kan aad buu u weyn yahay, cycle-ki aan soo doortay aad bay u yar tahay. waxaa marka inaan qurxiyo haddaan rabo midabka inaan ka bedelo, haddaan rabo inaan textiga ama qoraalka midig iyo bidix dhigo asaga habka ka dhigayo waxa dhan macluumaadkiisa meesha waxay ku idishahay asagoo dul imaadid oo highlight saartid kadib right click dheh. right click marka la select gare select saar. marka saas select u saartid kadib right click dheh. marka properties marka imaadid intaana kuu furbaysa. marka dialog box-kan wax alla waxaan macluumaad u baahnayd oo leader inta ku idishahay. ma fahanti? مثلا marka waxaan u baahanahay muujadida arrow size arrowhead yani falaarta madaxeeda weyn muujadida waxaan u baahanahay marka inaan ka yareeyo oo مثلا aan ka dhigo hal meesha 4 mitir uu ka ahaa you see uu yaraaday madaxeeda. okay leader type leader nooca waaye nooc straight ma u baahan tahay
spread ma u baahan tahay noocaas janjeero oo maxaa la dhihi jiray jijiif ma u baahan tahay nan ma u baahan tahay marka statekaas iska dooro ma fahanta color baa u sameyn karnaa mathalan guduud bay ka dhig ma garati okay leader indicate waxaa ka dhigi karnaa yani falaarta noocee linekeeda intaasoo line oo nooca kala duwan baa ka dhigi karnaa kaas noogu daa ma fahanta okay aynu eegno isaga iyo masaafadiis iyo waxaas tana ka bedeli karnaa okay arrowheadka noocee waaye waxaa ka dhigi karnaa intaas oo nooca kala duwan yaa noocaasa ka dhigi karnaa hadda marka noocaasay noo tahay oo madaxa buuran ma garata arrowhead saaska waa anaga bedelnay horizontal buu noo yahay marka intaasoo qaybood ayaan ka bedeli karnaa hataa marka hadda kaan fiirino general colorka waxaa weeye waa kaan rabnay waaye noo daa line typeka asagana waa soo aragnay waa kaas weeyaan okay weightkiisa okay event marka intaas ayaan kusoo koobayaa waxaad u ogaataa the more you do practice the more you get more points marka mar walba isku day inaad hadda intaan oo leader type ah mid kasto waxaa ku jira marka propertieskiisi iyo waxa uga bahay marka haddii مثلا kan aan dul imaano right click dheh waa kana properties tag waka intaas macluumaad ku jirto mid dul istaag just make practice inta ku soo afmeeyo darsiga. Wassalaamu calaykum.